markaan kusoo dhawaada barnaamijka maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay inaan reaction ku sameyno cilmi kororsi ayaan sameyn doonaa insha allah barnaamijyada yacni ay soo gudbiyaan astaan tv aan isku dayaya insha allah inaan ka faa'iidaysano qof kasta oo su-aasha yacni maskaxiyan ama nasiib ha uu jawaabo marka maanta waxaa duubaya laba cod aan duubaya marka microphone aan ujeedin sidoo kale iyo microphone-kan kamerada ku xiran labadu waxay ka caawinaya dhowti haddaa mid iga halaabo inuu midka kale isticmaali karo marka waxa way kala fasiixsan yihiin kan hadda anigu waxaan jeclahay yani caadiga loo duubayo oo microphone-ka ah kan waa fiican yahay quality fiican uu leeyahay waa asagana top kaligiis waa caadi marka waxa waaye labadaba duuba haddaa u baahan tihiin ama se aad ka hesheen isoo weydiiya waa idin soo samayn doonaa muuqaalada sida codka loo hagaajiyo sida codadka loogu rakibo cod fasiixana aa u heli lahayd marka sidoo kale kamerada aad ka duubayo waa kamera khatar ina macaadihin kameradaas haddaa u baahan tihiin sidoo kale waa idin soo bandhigi doonaa waxay tahay waxyaabaha ku jira kameradaas oo ka dhigaya kamera fiican marka waa kaasa aan isla bilaawno barnaamijka let's go saa uga jawaabno muuqaalkana yani muuqaal dheer waa horta ujeedo muuqaal dheer waaye marka anaga kulli kama wada jawaabayno muuqaalka waa soo koobi doona insha allah wax yariisa adii 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo dhow badnaato aan ka dhigaynaa kulli ma wada duubi karno marka waaye arkayna insha allah diyaar ay diyaar su-aasha ugu horeysa waxay qoran tahay sida tan qur-aanku waxa uu ka kooban yahay a 20 juz b tan qof kasta yaqaana umaleena c 40 juz d 60 juz aan hadda qiyaaso waxa uu ka kooban yahay b a 30 juz b 30 juz ama qiyaas ma waa run 40 juz way jirtaa 60 juz 30 juz waa quraanka bismillaah quraanka waxa uu ka kooban yahay a 20 juz b 30 juz c 40 juz d 60 juz bismillaah jawaabta saxda waxay ku sugan tahay xarafka b oo ah 30 juz b 30 juz waa wadanaa dhibceen yaa saddex dhibcood baa ka dhignaa mase hal dhibic shaksan yahay kusoo qora kumentiga akhrinta waxaa ka wada inaa waa halkii su-aal simple waxaa fiican inaa waxa iska hubiso waa hubinaysa mar walba hubintaas ayaa ku fiican waayo haddii jawaabtaada kugu dambaysa ma tahay $50 al reyna jawaabta b inay sax tahay aan eegno marka mambale easy si qabow waa loogu bilaabay shacab badanaa daawanayo barnaamijka soo dhaweys aan soo dhaweys camal laga wadaa okay su-aalaha dhan waa soo dhaweys caaw kuwa dambe ilaa fudayna insha allah insha allah su-aasha kale waxay u qoran tahay sida tan mahyo dhamaystir mahmaadan balaayo kaasii jeeda a la iskuma furo b la iskuma soo jeedsho c la iskuma sii daayo d lama doonto balaayo sii jeedo hay muxuu dhahay dhamaystir mahmahdan balaayo kaa sii jeeda lama soo jeedsado lama soo jeedo umaleynaya tahay lama soo jeedsado mahmaahda b waa haddana umaleynaa sugba kaasii jeeda iskuma sii daayo b lama la iskuma doonto soo jeedsho lama doonto ama ka dhigan lama doonto mitaa iskuma furo lama doonto d aniga qaadan lahay inkastoo b da isku dhow yihiin labadoo isku dhow yihiin umay ku mahadaay waxaa dooran lahay xarafka b oo ah balaayo kaasii jeeda iskuma soo jeedo waa doorto markii hore laakiinse waa mahada asaas ku ogaan waxba lagaa bedela marka waa sax runtii b aa dhahay markii hore waa ama ka laabtaa maima kama laabanay d aa dhahay saas ay ugu dambaysa haddaad hubin oo shak ka qabtid su-aalaha may tan waa oo insha allah tan waa hubtaa insha allah insha allah uuba $60 oo free anaga waa ku dhacnaa umaleynaa inkastoo aan sheegay waayaha ayaan hubino let's go wuu ka jawaab $60 oo hela $60 okay su-aasha saddexaad ka faa'iidaysan doonaa let's go insha allah ayaan geli doonaa su-aasha saddexaad maxaa ka filay saa inay fudud ka filay sida inuu ku socoto fudeedka inuu ku socoto fududka inuu soo waa isku kalsoon yahay raggeedii barnaamijkan waxaa tabagelinaya bangiga dahabshiil insha allah waayaha dahabshiil lacag badan soo dhiiba dahabshiil aad taabagelinaysa barnaamijka aayadda dhaxalka waxa ay ku jirtaa a albaqara dhaxalka marka النساء سي المائدة tan waa qiyaasi doonaa anigo qiyaas آيات تحرك وحي كجرتا A
B النساء B المائدة D الأنعام. تاخو النساء اوكي سورة النساء لحلقة إن بان لوga hadlay laakiin aayad intay tahay qiyaasteeda ma xume ku soco let's go سؤالها قدم هي حيانا ما بيكون في سنة ساعات. sababtoo dumara looga hadlayo nisaa soo ma fiican insha Allah سورة النساء xalka in badan ay ka hadashaa su-aashan way adag tahay waxaan dooran lahaa insha Allah in iisoo ka horrejina suuradda albaqra ku shaksanaya البقرة وش يستاهل؟ albaqra yani aayadda ugu dambeyso kale aayadaha beejka ugu dambe beejka ka horeeya idaa tadaayinta ma kala dhaqaalaha in ka hadashaa أنا كامل مثل. halkan diinta ka hadashaa sax هاي. أقول سكر كمان. النساء وصورتها أو maasha allah maasha allah walaa wuu ka fikirayaa su-aasha waa laga fiirsadaa النساء الله مقعد. البقرة النساء المائدة الأنعام. horta أنت بقى. inta horta aayad meeshaan kuma taalo suuradaha ku wada xusan si saxda su-aashana aayada ka hadlay آية كذا. آية وحي كجرتها الله. سورة كجرتها. suuradda ku jirta marka anisaa dooranaya ما بتاع. dooranaa sababtoo anisaa in badan dhaxal ka hadasha كنت أنا عرفت هدينا دورت. هو كشك سنة. ninka udaa ku soco hadlaydo kalaa okay waa gudbinaynaa waxay بس كم بدك المائدة دي waxaa umaleeyaa marka 3 su-aal isku xigto nisaa u doortay annagana u dooranay kaban aayadda dhaxalka waxa ay ku jirtaa suuratu baqara suuratu maa'ida suuratu ancaam ku adkayso آية حلقة كهلة سنة. وحي كجرتها. في هذا وقعد كسنة. oo ku adkaysanaysaa وقعد كسنة. insha Allah waa ku adkaysan annagana let's go إن جواب صحتها أنا رقمك. yeah legend $80 wadana anaga ma wadano lacagta saa wato anaga hal su-aala qaladna wadana waa soo dhaweyna lacagta waa sheegnay الله هذا مرة والبقرة. waa laba labeynay mid kale شكل دبوجر. okay midda afraad insha Allah قاعد فري كيف يقول لي. hee أنا maanahe وأمرك كوبادا. A فري كيك لو دلي. B قعنت لو تابت. C بنانك أو بحذر. D مدح لو دلي. ما أنا su-aalaha waxaa qabtaa inay ku yani jawaabahooda b ay ka wada dhigeen مدح لو دلي. بري ولا شيء. maano waa marka kubadda heeg freekig la dhaliyo maaha banaanka u baxdo maaha gacan lagu taabto haa madaxa lagu dhaliyo maya b waa weligaa in badan ما يصح. waa soo dheelaha laakiin waa dheelaha ليش أبغى كفر دبل معي. waa ii fududaan insha Allah maalmada waa sida la rabo kubadda waa iska fududah u dhahay waa saas gacanta lagu taabto le waa easy yes $100 wadaa saaxiibkay annagana su-aalaha waa ka jawaabnay 3 su-aala ka jawaabnay hal su-aala qaladna walena oo ayadana soo dhaweynay ayadana waa soo dhaweynay laakiin waa saxnay 3 su-aala hadda wadanaa aan ka jawaabnay marka hal su-aalna waa ka laba labeena oo waa qaladna laakiin waa sheegnay waa qaladna sax iyo qalad labadu waa nagu qaata fiina badan la let's yaabaa go هذا كويس كيسنيسك. هذا كنت هذا. وادع كتر. wixii nasiib oo kale halka su-aali ka haye su-aasha xigta hadalka soo gaabiya heesta waving flag ee koobkii 2010 la baahiyey waxaa qaaday taas waa iska fududahay halyey soomaaliyada qaaday kaynaan sii waaytan waa su-aasha waaba naqaanaa kulligeen kusa saaxiibka hadduu gafo waxaa u baahan yahay dhaqan celis dadka dib ka daawaday يا كاس حكم سنة هذه جواب صح نقط. insha Allah uu doorto asagana kaynaan uu doorta let's go easy qof kastoo wadaniya su-aashaas ma dhaafi karto jawaabteeda okay si waa ku qaat ما سيتي. Dennis Bergkamp wuxuu u ciyaari jiray kooxda la ilaa ila waxaan waa easy Arsenal fans haddaan nahay waa no easy Arsenal C ana waa ka taaban fan
marka in badan 8 sano ku dhawaad waa sii jiftaa intaas ka badan waxaa isleeyahay wuxuu dheeli jiray Arsenal yeah man Arsenal leh kooxdaas waa Arsenal Dennis Bergkamp kaza hol noo dhish wali waxta uu sheegay وانا تاجر جريدة ديوتاي maya waa ugu raacay Arsenal maadaama aad taageerto ugu qaatay wariyaha taageer Arsenal dhibkiis أفرت الصورة في بي هادورت let's go man ده شو كده ديكال wallahi B waxaa waaye waa سي مقع ولا شام يعني si magacayga waa magaca bedel سي magacayga waa سي laba mar u wariyaha uu gala laakiin iskulaha si ma magac walaasha kula ma ku dhaa magaca bedelin oo magac aniga magacayga waa kula iska celi مقع سي حتى easy شوية waa socona shana ka joognaa malena أفر بقول أو دولار رواية كوكان نونتا وحين ودي كنت هاي سيدتا okay 400 ku qaadanaa su'aashan labada actor ee kala ah shaaruqan iyo seef caliqan sanadkii 2003 waxay isla keeneen filimkii ahaa hindi kuma fiicni binkushi kabiham kal honahe shaaruqan alfida iyo nakahena cali mala mooga I don't know man kuchi kabiham D kanske D laga yaaba D amalena kala honahe ma miya korea kala honahe miya okay I don't know kala honahe huwa ma la aku qortay sida qortay levelka I don't know iska qiyaasani D yaa dhahay jaabnahay haddii ay su'aalahan isaan sax ahayn saddexdan fursad waa kaa khasaari doonaa kulligood wariyaha wuu caawinaya wallahi may shaki igama jirtan waa caawinaya amalena xunuya ka fiirso si fiican ku fiirso waxaa haystaa jansiyaal kale ka faa'iidaysi kale dadka weydii kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay malena 50-50 laga tuuraayo sidoo kale saaxiibina waca karo ay kuji oo tahay oo ku dhita beelay laakiin biyo ku adkaysana kalhono علي خان ما قدر سيف علي خان اوكي هاكي سيف علي خان ميا وكجا والله انا ترياش كلام ما خان شاروخ قال لك قانا بس انت كانوا ما قان وجهه يعني ادي مقعد ما قان لا يابا اوكي وكجوابي انا tan waa qaladnay reer hindi ma nihin marka saashin kale laga jawnay xuna jecel dhiiga ma lagu qoray jecel dhiig ma lagu qoray waa sameeyey heestaas yaa sameeyey heestan waa sameeyey yaa sameeyey kooda amaya okay jecel dhiig ma lagu qoray yaa sameeyey okay yaa sameeyey hadraawi ma sameeyey maxamed xaashi ma sameeyey mise xalima qalib magool maxamed saleebaan tubeec istaan waxaa la dhahay nin oo Suudaniya xamar inuu imaado miyaa maqaan mar xalimo qaliif magool uu ka helo kala astirti baan ka sheekeynaa daawac Ibrahim Maxamed Ibrahim Mursame Ibrahim ku sheekeynaya heestada u yaqaanaa be marka in Suudaniya loo qaaday istaan sarjina okay nin Suudaniya loo qaaday hees Soomaaliya jecel dhiig ma lagu qoray okay markaas gabar qaada malena xalima qaliif magool fanaanad weyn Allah naxariisto ay ka dhigayna ay jecel dhiig ma lagu qoray waxaa sameeyey heestaas qaldaneen taariikhdeeda ama dhegeysta xalima qaliif magool samaysaa malena ma bini'aadan ahay wax walba dhici karo laakiin mar walba waxaan jeclaa inaan degdegin jecel dhiig ma lagu qoray waxaa sameeyey maxamed ibraahim warsame hadraawi insha allah okay hadraawi yaa sameeyey macquul okay macquul okay jecel dhiigga lagu qoray waxaa sameeyey maxamed warsame hadraawi oo yahay annaga waa qaalnay
waxaa dhahnay xalimo khaliif magool aa dhahnay laga yaaba inay ayadu ku luuqeysay marka su-aalihii maanta intaas ku eg yihiin jawaabihii aan ka helnan waxay noqdeen aan maleyna 4 su-aal aan ka jawaabay 3na waa qalda aan maleyna haddii iska badneen marka commentiga igu reeba intaa qalday sidoo kale inta adiga qaladana kusoo qor commentiga iyo intaa taqaanay marka waa barnaamijka intaas ku egyahay let's go MK Studio